الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله waxaan ku dhex jirnay baraarujintii ku saabsanayd bisha barakaysan ee nagu soo aadan iyo sidaan uga faa'iideysan lahayn sidii aan bisha ku qaabili lahayn waxaynu soo marnay labadii khudbad tan ka horeysay asbaab loo baahan yahay intayna bishu soo galin inaynu ku dadaalno si aan fursadan uga faa'iideysano sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo haatan isla mawduuci intaan bishu soo galin dadaalka loo baahan yahay ee inoogu kaalmayn karaya inaynu bisha ka faa'iideysano jaaniskaana aynaan dayicin ayaa waxaa ka mid ah inaynu ku dadaalno iimaanka siyaadintiisa sida qur-aanka kariimku inoo sheegay sunnada nabiguna sallallahu alayhi wasallam ay faahfaahisay iimaanku waa siyaada waana nusqaamaa marna horus dhac baa ku yimaada oo graafkiisu hoos buu u dhacaa marna iimaanku waa siyaadaayo waa kobcaayo waa koraayo waa dhammaystirmaa iimaankaa siyaadadiisa ayaa wuxuu keenayaa inay taacad iyo khayrkuna siyaadaan inuu nusqaamo iimaankaagu hoos u dhacana waxaa ka dhalanaya in khayrkii iyo wanaaggaad samayn lahayd hoos u dhaco oo aad ka wahsato cibaadaadka ka wahsato oo taacaadka iyo khayraadka ka wahsato bal inaad intaad khayraadkii iyo taacaadkii iyo mubaaxaadkiiba intaad dhaafto inaad dembiye iyo xumaan qasato waxa keenaya waa iimaankaagiiyo hoos u dhacay sida nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi axaadiistiisa uu ku tilmaamay si marka aad qalbigaagu awood ugu yeesho xoogna ugu helo inuu taacada bisha barakaysan uu ku dadaalo oo ku hormaro waxa laga maarmaana iimaanka inaan siyaadino inaan cusboonaysiino nabigeena waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu yidhi iimaanka qalbigiinna ku jiraayey wuu duugoobaa siday maradu u duugowdoo kale ee alla weydiista inuu iimaanka cusboonaysiiyo qalbigiinna dhexdiisa ku cusboonaysiiyo iimaanku waa duugoobaa waana cusboonaadaa mar waa hoos buu dhacaa marna kor buu usoo kacaa haddaad aragto adoo wahsanaya oo khayrkii taacadii kuu dhadhami la'yahay oo soonkii xamili la oo salaadii hameenkii u kici la oo sadaqada bixinteedu kugu adag tahay oo cumradii iyo xajkii iyo khayraadkii kari la oo dacwadii iyo diinta ilaahay in loo adeegaayo ay kugu culus tahay taasi waxaad ogaataa waxay ka imaanaysaa hoosu dhac ku yimid iimaankaaga waa sidaas daraaddeed baa qur-aanka kariimka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu inagu baray markuu khayr ina farayo in la sameeyo la rabana waxaa laga hormariyaa in laynoogu dhawaaqo sifada iimaanka marka laynaga reebayo waxaan dan iyo maslaxa inoogu jirinna ayadana waxaa laga hormariyaa in laynoogu yeedho sifada iimaanka dadkii mu'miniinta ahaayow maxaa iimaanka loogu halqabsadoo loogu yeedhayaa calashaani waa qodobka keenaya waxaan lagugu yeedhayo hadduu khayr yahayna inaad samayso hadduu xumaan yahayna inaad iska ilaaliso waxa keenaya qodobkaasaa lagugu dhawaaqay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahu iimaanka marka kobcintiisa iyo korintiisa iyo koruqaadidiisu iyo kamaalkiisa inuu gaadho asbaab bay leedahay munaasabaad kale aynu kaga hadalnay sidaas daraaddeed iimaanka waa inaan kobcinno qodobka labaad ee laga maarmaanka wuxuu yahay in aynu raadsanno aadamuhu kama maarmo mar walba inuu cid la socdo la saaxiibo la fadhiisto sheeko wadaag la yeesho keligii ma noolaan karo kaan ijtimaaciyo wey hadday lagama maarmaan noqotay inaad cid uun la socotood la saaxiibtood la noolaato akhyaarta la soco akhyaarta la saaxiib
midba midkuu dhanka khayrka iyo wanaagga kaga fiican yahay raadso maxaa yeelay aadamuhu isla joogidda uu isla joogiyo wada noolaanshaha uu wada nool yahay buu isa saamaynayaa midka khayrka badan ee kaa fiican ee wanaagga kaa sita marka aad la saaxiibtahay waad ku dayanoo wanaaggiisii buu wax kaa siinaya mid kaa hooseeyoo liita markaad la saaxiibtana hoos baad u dhacaysaa sidaas daraaddeed suxbo wanaagsan iyo rufqo wanaagsan raadso meeshaad ka heli karto si ay kuugu kaalmayaan ilaahay taacadiisa nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay ruuxu saaxiibkiibuu ku diin yahay dhaqankaagu waa dhaqanka saaxiibkaawa mansiladaadu waa mansilada saaxiibkaawa xataa aakhare marka la tago cidda markaa aad jeceshae la saaxiibka taheed la socoteed la fadhiisato unbaad aakharana la meel noqonaysa sidaas daraaddeed si aad khayrka uga kasbatood horay u socoto dadka kaa horreeya higso oo iyaga la saaxiib oo iyaga la fadhiisto oo ahlu sharka ka fogow ha la saaxiibin hana la fadhiisanaysayna kuu lugoyn qur-aanka kariimkaa buu rabbi inoogu tilmaamay maalinta qiyaamada marka la tago dadkii ahlu sharki iyo dadka xunxun la saaxiibay inay qoomamoon doonaan allah tabaaraka wa tacaala meeluu kaga sheekeeyey qur-aanka kariimka inuu nin farta dhexda ka qaniini doono oo uu dhihi doono maxaan yacni hebel ula saaxiibay maxaa ii geeyey saaxiibnimadiisa oo muxuu kugu sameeyey wuxuu iga leexiyey rasuulka raaciddiisa dikrigii alle khayrkii waa igalaaftay wanaaggii buu iga jeediyey sabab wuxuu igu noqday maanta meeshaan aallo inaan imaadoon naar iyo cadaab galo khayrkii iyo jannada iyo naxariista ilaahay inaan ka qado hebel baa saaxiib sabab iigu noqday allow maxaa ii geeyey maalinkaa waxba ku anfici maayo sidaas daraaddeed akhyaarta la saaxiib dad wanaagsan raadso ayaga la fadhiiso ayaga la soco noloshaada wax badan bay kugu kordhinayaan waxaa badan nin xumaa oo hawadu qaadatay ooy naftu qaadatay oo shaydaan ka adkaaday oo maalinuun ilaahay alla tabaaraka wa tacaala uu u qadaray dad akhyaara inuu helo akhyaartii buu ku daba xidhay la saaxiibiddii uu la saaxiibay buu wixii horeo dhan kaga dhex baxay markaasuu wuxuu noqday addoommada ilaahay dadka u horreeyuu noqday saabiqiintuu ku biiray calashaani dad wanaagsan buu helay kuwo wanaagsanaabaa jiray oo fiicnaa oo iimaan iyo taaco iyo khayr iyo wanaag lahaa maalin unbaa ilaahay qadarkiisa dad xunxun bay isheleen way la qabsadeen kuwii bay ku tageen markaasay darajadii iyo meeshay joogeen intay ka soo dejiyeen baa waxay ka dhigeen inta ilaahay abuuray kuwa ugu shar badan sidaas daraaddeed saamayn buu kugu leeyahay ciddaad la fadhideed la socoto ka fiirso ciddaad la soconayso waxaa aad u badan ood arkaysaa oo miaal noqon karaya dadka ictikaafaya meeshanaa laga tegayaa meelo kalea laga imaanayaa jidheel baa la marayaa diyaaradaa la fuulayaa kharash baa la bixinayaa beydkii ilaahay ee makiyo masjidkii xaramkaa la ictikaafsan yahay masaajidkii nebi maxamed baa la ictikaafsan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddana maca daalika majaalistaasi waxaa buuxinaya xan iyo isku dirdir iyo xiqdi iyo xumaan ayaa buuxinaysa sababtu maxay tahay dadka meesha fadhiyaay in xun baa ku jirto oo u furtay albaabkaasi kadibna waa la wada maray akhyaartii maxaa saameeyey nin xunoo ku dhex jira fadhiga ayaa iridda furay markaasay wixii wada mareen camalkoodii baabi'iyeen soonkoodii ictikaafkoodii khatar geliyeen wahaakadaa ninka xun ee faasidka ah meel xun buu kaa ridaya saabiq baad noqon kartaa akhyaarta sababtood muqtasid baad noqon kartaa akhyaarta sababtood daalim linafsihina waad noqon kartaa ashraarta iyo dadka xunxun sababtood soo nabigeennu ma dhihin salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ilaahay akhyaarta addoommada waxaa ka mida akhyaarta addoommada ilaahay akhyaartoodu waxa waaye waa dadka marka la arko ilaahay la xusuusto waaye addoommadiisa qaar noocaasaa ku jira markaad wejigooda aragtaba ilaahay bay ku xusuusinayaan iska badaa fadhigooda iyo la saaxiibidooda iyo iska badaa qodobkaasina waa qodob muhiim qodobka saddexaadi waxa weeyaan inaynu iska ilaalino oonu ka taxadarno digniinteeda qabno oon ka foojignaano laba cadow oo aan noloshan leenahay labadaa cadowba waxay ku dadaalayaan bishan barakaysan iyo jaanisyada noocana inay ku dhaafaan adoon ka faa'iidaysanin sidaas daraaddeed aad maxruumiinta ku darmato
cadowga koobaadi waa naftaada xun ee kugu jirta al-ammaara bisuu dabeecaddeeduna ay tahay sida Allah ku sheegay inay xumaanta ku farto ay ka shaqayso inay ku jiido dhanka xun wanaag iyo khayrkana ay ka didto oo ka cararto oo ka celiso ka hor istaagto naftaada xunta aad dagaal la galo nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam mujaahidka dhabtiihi waa ruuxa naftiisa ilaahay dartii ula jihaada inay sidaa tahay waxaad ku garanaysaa liibaantaadu waxay ku xidhan tahay sidaad naftaada uga adkaato khasaarahaaguna wuxuu ku xidhan yahay kolba sida naftaada aad u dayacdo ood faraha uga qaaddood seetada u siidaysid hoggaankeeda u fasaxdo haddaad qabato ood la dagaalanto ood xakamayso oo aad cadaadiso oo aad jidka qabadsiisana sabab waxay kuugu noqonaysaa inay wax wanaagsan adduun iyo aakhiraba kuu jiirto haddaad faraha ka qaaddo iyadu ku hoggaamisana adduunkana way ku ceebayni aakhirana cadaab bay kugu tuuraysaa allah tabaaraka wa tacaala markuu 10 dhaarood uu maray 10 dhaarood oo kala dambeeya markuu isdaba dhigay ayaa markaa kadib natiijada wuxuu ka dhigay qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha waxa liibaanay naftan ruuxii daahiriya ruuxii tarbiyeeya ruuxii taskiyeeya ruuxii hagaajiya kaasi waa liibaanay midka khasaarayna waa ruuxa naftiisa wasakheeya xaqira sidaaya faraha ka qaada oo edbinteedii iyo la dagaalankeedii iyo jihaadkeedii aan gelin kaasina rabbi wuxuu ku dhaartay inuu khasaaray marka liibaantaadu waa nafta ka adkow khasaarahaaguna waa naftaada sidaayo ha ka adkaato nafta marka ha ahaato dabeecaddeedu inay xumaan kuugu yeedho hana xumaato asal ahaanteedu laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay cunsur dhaganugul oo fudud oo haddii dagaalkeeda la galo isdhiibta aan adkaysi badan lahayn laakiin asbaabteedii inaad la timaaday u baahantahay waxaa qodobka afraad ee saddex kale uu yahay oo cadawga isagana loo baahan yahay inaynu dagaalkiisa galaa uu yahay bishan barakaysan suusan wanaagga inoo seejinin waa cadawgeenna isagana asalka ee taariikhiga ah ee shaytaana ibliisa ilaahayna tabaaraka wa tacaala inooga digay inna ash-shaytaana lakum caduwwun fattakhiduhu caduwwa shaytaan cadowgu idin yahay isaga unba cadow ee cadowgaasi cadow ka dhigto iska ilaaliya ugu talagal horta inuu cadow yahay baro inuu cadow yahay talagalkiisa qaado tabaawushadii qaado dagaalkii isu diyaari hubkii diyaarso see loola dagaalamaa allah baa ina baray tabaaraka wa tacaala sida loola dagaalamo la isaga celiyo hub baa lagula dagaalamaa laakiin hubka aadamaha loogula dagaalamo maaha waa nooc kale sibaa la isaga celiyaa laakiin waa siyaabo kale allah tabaaraka wa tacaala siduu qur-aanka kariimka inoogu sheegay asalka iyo wasiilada iyo jidka uu inoo soo maraayay ma aha si badheedh ah oo qasab oo xooga inuu kugu duufsanayo maaha ama kuu lugoynaye asalkiisu wax way waa dabamariyo waa xeelad waa khayaano waa inuu muxuu ahaayey si qarsoon kuu lugooyo ilaan asalkiisaba wax weeyaan qalbigaaguu u imaanayaa kadibna waa u sheekaynayaa waxaadan adiguba maslaxa kuugu jirin ayaad arkaysaa qalbigaagiioo ka soo fulayso yaa qalbigaagii aad adigu lahaydee kugu jiray eed ku shaqaysanaysay ayuu ka shaqaysanaya seed ku garanaysaa marka sheekaa ka socota qalbigaaga waa loo sheekaynaya xumaan buu rabaa macsiyuu rabaa khayrkii baad ku kari la'da balaayo kalaa ka shaqaysanaysa seed qalbigaaga iyo dhiiggaaga iyo xubnahaaga uga saari kartaa cadowga noocaas amaad isaga celin karaysaa waa su'aal weyn oo u baahan inaan hello waayo siyaabaha uu kuu khaldayo mararka qaarkood ku baraarugi mayse aabbaheen aadam iyo hooyadeen xawaa markii uu lugoynayo jannada ka saarayay bal siduu u maray fiirso qur-aanka kariimkaasuu uga sheekeeyey toos uguma imaanina dariiq laaban buu u soo maray kadibna si laalaabuu u qalday kadibna waa u dhaartay sidaasuu u lugooyey gaalada iyo munaafiqiinta iyo macaasida ay gelayaan iyo kullina jidkaasuu inoo soo maraya shaytaanku marka ugu horraysa wuxuu isku dayaa inuu ku guulaysto inuu gaal kaa dhigo diinta kaa saaro hadduu ku kari waayo oo uu taa ka quusto wuxuu u soo degayaa midda ku xigto inuu bidco iyo inxiraaf iyo caqiidadu inay kaa halowdiyo shubahaad kugu rido hadduu taa ku guulaysan waayo wuxuu u soo degayaa qodobka xigo inuu dembiyada waaweyn kugu rido hadduu taa ku guul darraysto wuxuu u soo degayaa qodobka xiga oo ah
dembiyada yaryarka inuu kugu rido haddii taa uu ku guul daraysto wuxuu u soo gudbayaa inuu kugu mashquuliyo waxyaalaha iska bannaan ee mubaaxaadka ah wakhtigaaga aad ku bixiso oo mubaaxaadku waaba iska bannaan yihiin ilaahay baa banneeyey maxaa dhiboo ku jira halkaasuu kugu haynayaa wuxuu kugu haynayaa si aadan uga gudbinoo khayr iyo daaco aadan wakhtigaaga u gelinin mubaaxaadkaasuu kugu maaweelinaya kugu celcelinaya haddaad ka gudubto daacada u gudubto kaa hadhi maayo meel la kaaga hadhi maayo daacadii buu kuu dhex fadhiisanayaa markaasuu wuxuu doonayaa daacada kale khayr badan midii khayr badnayd si aadan ugu gudbin mid laga khayr badan yahay buu markaa kugu mashquulinaya weligaa miyaad maqashay shaydaan baa dad khayr faray oo khayr dadka ugu yeero daaco ugu yeedha way dhacdaa laakiin ujeeddadu ma aha inaad khayr samaysee khayr ka sii fiican buu doonayaa inuu kaaga baajiyo oo kaaga hor istaago wahaakada meelo aadan garanaynin siyaabo aadan garanaynin ayuu ku soo gelayaa cadowgaasi waxaad u baahan tahay marka inaad barato asaaliibtaad ula dagaalamayna saad isaga celin lahay ina aladiina ittaqow إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ضدك مؤمنين شيطانكم مركو طابتو مركا بوايس خصوصا دقالكي بي قليا مركا سيسيق علين الله قضبك أقول ما يخطبه النبانت وبرارجين تمضاني وحو يهي بالشبرة كيسان مركا يسوق قليسو النبي وحو الرابي صلوات ربي والسلام عليه إن مال كهر أما لما بري كهر بشا إن للصومه نبي قواتي ذي صلوات ربي والسلام عليه وحوليه هاي بشا رمضان هكلاهر مرينا مال صون كاد أما لما بري صون كود إلا إنو الروح هري الصومي تري عادة أهيد إنو يهيب مويانا أو كاسي هايس كالصومه هذي عادة دي سيوا فقدو محال قوضا مالك بشو رمضان مالك كهرية إيا مالك كسي هرية روحي أنصون عادة لهين إنو الصوم النبي قوادي صلوات ربي وسلام عليه وسيد داليا ومحوها وبشان كسور دوينيا أما الددال بانسي سمينيا صحدي عادة وأهان شرت مالين إسنين تسومي شرت إسنين بين نقطة صوم خميس بعادة وهين تصون طوي وافق ذي الصوم والقوة قلي لكن روحا عادتي سأهين إن أصومي مايا نبي قوار ربي صلوات ربي والسلام عليه صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا فيه لما تحب وترضى من الأعمال الصالحة يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك